dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo ciidamada daraawiishta galmudug oo isgarabsanaya iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa maanta ka bilowday deegaanka isgoyska ee duleedka magaalada Camaare ee koonfurta gobolka Mudug. dagaalkan oo muddo socda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in khasaare uu soo kala gaaray labada dhinac isla markaasina ay waxyeello soo kala gaartay. saraakiisha galmudug ee ciidamada hogaaminaysa ayaa sheegay in dagaal ay kula wareegeen deegaankii lagu dagaalamay isgoyska kaasoo duleedka ka ah magaalada Camaara. dhanka kale abaabulo xoogan ayaa ciidamada daraawiishta galmudug waxa ay ka wadaan aagga deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud halkaas ay fariisimo ku leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab. ciidamada galmudug ayaana la sheegayaa inay ka ruqaansadeen deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud kaas oo aan wax badan ka fogeyn deegaanka Qaayib. ciidamadan dagaalka kula jira al-shabaab ayaa waxaa hogaaminaya wasiiro iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxaana qayb ka ah wasiirka amniga galmudug iyo taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadaq Joon. howlgalladan ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada al-shabaab ay weerar ku qaadeen degmada Wisil ee gobolka Mudug 27 bishii aynu soo dhaafnay waxaana halkaasi al-shabaab ay ka geysteen khasaarooyin kala duwan. inta ay socdeen howlgalladan ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab ayaa ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ee garabsanaya waxaa u suura gashay inay la wareegaan deegaano dhowr oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug waxaana ka mid ah goobaha ciidamadu ay la wareegeen magaalada Bacaadweyn, deegaanka Shabeelow iyo deegaano kale. maxamed maxamuud Owaadan, Cadaado.